warkii madaxdiisii munaasabadda toddobaadka Itoobiya loogu magac daray ayaa wali waxa ay si deeran looga xusayaa ama ay uga socotaa magaalada Addis Ababa iyada oo kooxaha kala duwan ee fanka iyo dhaqanada dowlad deegaanadu ay ku soo bandhigayaan dhaqamada aan ku yihiin السلام عليكم مالين wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Nasruddin Xasan ayaa idin soo jeedinaya warkii oo dhameystiran wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa waxay ka hadashay faragelinta dawladaha shisheeye ay ku hayaan Itoobiya warkan waxa noo soo koobaya Faalaal Xiriir Maxamed wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa warbixintii toddobaadlaha ah ee soo saartay waxay ku sheegtay in ay dawladda Masar ay ku dhawaaqday inaan wax saameyn ku yeelanaynin dhismaha biyo-xidheenka weyn ee bulshada Itoobiya ee dawladda Itoobiya ay dhisanayso dhinaca kalena waxa uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ambassador Dina Mufti ከሚዲያ ተቋማትም ይመጣል ታዋቂ ሚዲያ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን ሁሉ ጊዜ እየከሰሱ ያሉ ከቅርብ ጊዜ in ay fargelinta dalalka shisheeye ay xilliba xilliga ka dambeysay ay ku soo badanayaan dalka Itoobiya iyadoo waliba ay u aanaysanayaan hawlgalka nabadeynta ee laga waday waqooyiga deegaanka dalkani Itoobiya arrintaasi iyagoo ka duulaya ayay ololooyin kala duwan ay isku dayayaan inay fargelin ay ku sameeyaan oo cadaadis ay ku saaraan dawladda Itoobiya waxana ay intooda badan u badan yihiin warbaahinada waaweyn ee caalamka iyo wariyaasha waaweyn iyo shakhsiyaad caan ah iyo senataro kala duwan oo caalamka ka tirsan ayaa isku dayaya inay mar walba ay fargelin ay ku sameeyaan arrintaas oo tilmaamaysa kooxda argagixisanimada lagu magacaabay iyo hogaamiyaashii hore ee kooxda TPLF ay xiriir la lahaayeen arrintaasina ay tahay arrinta ay ugu dhaqdhaqaaqayaan sidii ay Itoobiya ay u fargelin lahaayeen siyaasadeeda iyo guud ahaanba geed socodka siyaasadeed ee ka jira dalkani Itoobiya dhinaca kale waxa uu ambassador Dina Mufti afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda warbixintiisa toddobaadlaha waxa uu ku sheegay in sidoo kale ilaa 36 goobjoogayaal oo goobjoogayaasha midowga Yurubta iyo waliba midowga Afrika ay ka qayb gali doonaan doorashada guud ee marka lixaad dalka ka qabsoomeysa si ay goobjoog uga noqdaan doorashada dalka ka qabsoomeysa arrintaasina ay tahay dawladda Itoobiya maslaxadda ay sameysay ee isla markaasna si ay doorasho xor ah oo cadaalad ah ay dalka uga dhaqan gali lahayd talaabada ay iyo diyaar garowga ay ugu diyaar garoobayso sidii ay doorasho xor ah uga qaban lahayd dalka ay dadaal weyn ugu jirto waa mid tilmaamaysa ayuu yiri warbixintiisa toddobaadlaha ku sheegay wali waxaad daawanaysaan warkaygii telefishinka qaranka Itoobiya munaasabadda xuska toddobaadka Itoobiya loogu magac daray ayaa wali waxay ka socotaa magaalada Addis Ababa dawladda deegaanka Soomaalida ayaa si ballaaran waxay uga qayb qaateen xuska toddobaadka Itoobiya warbixin ayaan idinka haynaa halkani waa goob ay ku soo bandhigayaan kooxaha fanka iyo suugaanta dawladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo ka qayb qaadanaya xuska toddobaadka Itoobiya iyadoo ay la xidhiidho xuska toddobaadka Itoobiya oo ay ka soo qayb galeen tobanka deegaan iyo labada ismaamul magaalo ee Itoobiya ay ka kooban tahay ayaa waxa aqoonsiga dalku ay ku soo bandhigeen dhaqamada ay caanka ku yihiin iyo dhexgalka aqoonsiga iyo sidoo kale fursadaha dalxiiska iyo maalgashiga ee deegaan walba gaarka u leeyahay deegaanka Soomaalida ayaa ka mid ah deegaanada sida weyn uga qayb galay munaasabadda xuska toddobaadka Itoobiya waxayna muujiyeen kaalin ay kaga qayb qaadanayaan Soomaalidu fagaaraha toddobaadka Itoobiya mudane Ilyas Abiib waa wasiirka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu sheegayaa in ka deegaan ahaan ay si ballaaran uga qayb qaateen isla markaasna ay ku soo bandhigeen munaasabaddan agabka dhaqanka Soomaalidu ay caanka ku tahay ka deegaan ahaan si wanaagsan baan u soo diyaar garownay munaasabadan si ballaaran baan uga soo qayb galnay waxaana qayb ka ahaa munaasabadan deegaankeenna waxaa ka socday kooxda dhaqanka ee deegaankeenna oo iyaguna sidoo kale ciyaar dhaqameedka kala duwan ee deegaankeenna uu leeyahay halkan waxa weeyaan ku soo bandhigayay sidoo kale waxaan ku soo bandhignay sida waxa weeyaan goobta aan alaabta aan dhignay ka muuqata guud ahaan bulshada Soomaalidu agab dhaqameedka ay leedahay ee kala duwan ama aan dhaqanka aanu leenahay
haddii ay noqoto hugii hadday noqoto hadday hoygii noqoto agabkii kale la adeegsanaya hadday noqoto kuwii beeraha lagu qodan jiray hadday noqoto sidoo kale waxaan ku soo bandhignay goobaha ku habboon maalgashiga ee deegaankeenna gaar ahaan goobaha wax soo saarka ku habboon goobaha dalxiiska deegaankeenna uu leeyahay oo run ahaantii waxa weeyaan aan weli aan la taabanin oo la odhan karo waa wax badanba deegaankeennu khayraad fara badan buu leeyahay deegaankeennu sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay cunto dhaqameedkeennii soomaalidu ay hiddahay dhaqanka u lahayd oo guud ahaanba haddii ay noqoto iyadoo midhihiiya ah iyo iyadoo waxa weeyaan la bisleeyeyba labadii noocba way yaallaan sidoo kale qaraab dhaqameedkii baa isaguna meeshan waxa weeyaan ayaa yaallo oo aan ku soo bandhignay soomaalidu marka runaantii munaasabaddan waa munaasabad aad u ballaaran wax badanna deegaanba deegaanka kale uu ka baran karo geestooda qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha iyo dadka u dalxiiska yimiday fagaarahan toddobaadka Itoobiya ayaa sheegay inay goobtani ay ka arkeen waxyaabo aad u soo jiitay waxaan maanta ka soo qaybgalay maalin weyn oo maalinta toddobaadka Itoobiya ama week of Ethiopia la dhaho waxaan soo marnay dhammaan dhaqamada Itoobiya qolo walba oo meeshan joogta waxaa loo sameeyay guri gooni ayagu ay leeyihiin waxaan soo wareegnaba qaybtii Soomaalida anagu aan goonidu lahayn baan imaanay gudahan galnay waxyaabo badan oo taariikhi ah oo awal hore aanan arki jirin baan ku aragnay haday sawirro noqoto haday qoraalo noqoto iyo waxyaabo badan runtii waa maalin aad ugu weyn waddanka Itoobiya waa maalin xusid mudan والله wax badan bay isku soo kordhinaysaa sababtoo hadda intaan soo mareynay annaga laftirhaantaanadu dadyow badan oo arag oo xitaa kuwa dhar qaba ay ku jirin oo dhar baan qabin kuwa kale oo dhaqamo kale leh in badan baan soo dhaxmarnay marka isdhaxgal iyo isjacayl bulsho oo aad u weyn bay soo kordhinaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annaga laftirkaana ka soo qayb galnay maanta halkan aan joogno ku warta aad baan ugu faraxsanahay inaan bulsho badan annaga oo kala qoomiyado kala diin haysanay inaan meel isugu nimaano oo qof walba soo bandhigo waxyaaluhu dhaqanka u lahaa kullay waa dhaqankeena waa kullay waa la duubay waa la arki waxa weyn dhaqamadeeni sidoo dhameystiran intooda badan waa la soo bandhigay inkastoo aan la dhameyn karin baa la yiraahdaa dhamaantooda la soo bandhigo qoomiyadaha kalena waan la aragnay waxyaalo ma garanaysaa ayaguna nacjab galiyay waan aragnay waxyaalo qurqurux badan ay ayaguna dhaqamo waan aragnay marka waan ku farax Culture is very nice like Somali I see everything dancing program is very nice wallahi so here I good feeling because you know Ethiopia is very safe and good place dhaqanku waa mid wanaagsan gaar ahaan dhaqanka Soomaalidu waa mid soo jiidasho leh aad ayaan u jeclahay Ethiopia waa goob amaan ah oo nabadgelyo waan jeclahay dalxiiskeeda gaar ahaan Soomaalida aad ayaan u jeclahay dhaqankooga iyo fankooga وهاجاج ولي واحد داون السنة وركي تلفزيون كقرنكا إثيوبيا وتصويرين كيمانية أديس أبابا رئيس الوزراء الدولة دكتور أبي أحمد أيا وحاو شيء إن دولة إثيوبيا أي مرنبا أوغالاني إن فرقلين شيشية وقت ما دي بدا سو كورمايو وريها يا محمد محمود fargelinta dalalka shisheeye ay ku wadaan dalkan Itoobiya maaha mid marnaba loo dulqaadanayo waa fargelin ay ku doonayaan inay ku cadaadiyaan isla markaasina dhaqdhaqaaqa iyo waliba siyaasadda dalkan Itoobiya haddaba ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya markii uu xariga ka jirayay seerada Samara ku taala ayaa waxa uu sheegay hadalkii soo jeediyay waxa kamid ahaa inaanay dalka Itoobiya aanay marnaba aanay isu dhiibaynin sidii aabayaashoodii hore ay u soo halgameen iyo sharafta dalkooda aanay marnaba ku gorgortamaynin miradaw ahel magab shacabka Itoobiya waxa laga yaabaa in ay sabool yihiin inay wax cunaan aanay haysan xitaa inaanay xitaa waxaanay hooy ay ka dhigtaan aanay haysanin balse marnaba kuma gorgortamayaan sharafta dalkooda mana doonayaan inay marnaba cadaadis iyo gumaysi lagu qabsado dalka Itoobiya waa dal sharaf iyo sumcad leh arintaasina marnaba ma ogolaanayno in gumaysiga iyo waliba faragelinta shisheeye in ay cadaadis ay ku saarto siyaasadda dalka Itoobiya marnaba waa mid aanay shacabka Itoobiya aanay ka ogolaanaynin haddaba warbixinada kala duwan ee ka soo baxaya dalalka reer galbeedka iyo waliba meelaha kala duwan ee dalalka caalamka ayaa ah kuwa dhaawacaya sumcadda iyo sharafta dalkan Itoobiya oo loo baahan yahay in wax laga qabto arintaasi guud ahaan waxa la sheegayaa in ay fargelintaasi
ay tahay mid lagu doonayo in lagu arqaladeeyo siyaasadda dalkani Etoobiyana marnaba aanay ogolaanaynin. magaalada Batu oo ka tirsan dowladda deegaanka Oromiya ayaa la sheegayaa inay ka soo kabanayso burburkii iyo rabshadihii ka dhacay dilkii ka soo wareegay fanaankii Hachalu Hundessa soo ku waramaya waryahayaga Xamdi Maxamuud. iyadoo ay la xidhiidho dilkii loo geystay fanaankii Hachalu bishii sane ee sanadkii hore 2012 meelo badan oo kamid ah deegaanka Oromiya waxa ka dhacay qulqulatooyin iyo rabshado kuwaasi oo horseeday khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed. magaalooyinka ay ka dhaceen qulqulatooyinkaasi waxa kamid ah magaalada Batu. xilligaasi magaalada Batu 142 goobood oo isugu jiray goobo ganacsi iyo guryo lagu nool yahay ayay waxyeelo burbur hantiyeedii soo gaadhay. magaalada Batu ayaa waqti xaadirkan u muuqanaysa mid ka soo kabanaysa burburkii waqtigaasi rabshadaha soo gaadhay waxaana shaqooyinkoodii dib ugu soo laabanaya shakhsiyaadka ay waxyeeladu hantidooda soo gaadhay. በሰዓቱ የደረሰብን ችግር shakhsiyaadkani waxay sheegeen in dhibaatooyinka waqtigaasi dhacay ay ahaayeen kuwa aan la suuraysan karin waxayna sheegeen in gebi ahaanba wixii ay hanti lahaayeen ku burbureen rabshadahaasi. ሆቴል ነው ትልቅ ሆቴል ነበረኝ ሱቆች የሚከራዩ ሱቆች ነበሩ haddaba dadkani dhibaatadu soo gaadhay ayaa tilmaamay in waqti xaadirkan oo ay dib u bilaabeen shaqooyinkooda ay gacan weyn ka qaateen shacabku. ያኛው ሆቴል ያው ትንሽ ጉዳቱም ከፍተኛ ነበረ ለማደስ ከኔ አቅም በላይ ነበረ dadkani dhibaatadu saameysay ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay ka fiirsadaan xilliyada ay dhacayaan dhibaatooyinka dhalin kara dareen xamaasadeed oo aysan ku degdegin waxyeelaynta shacabka iyo hantidooda maadaama oo aysan isku xidhnayn xubnaha dhibaatada geysanaya iyo kuwa naftooda iyo hantidoodaba la waxyeelaynayo. አስተውሎ ንብረት ከመጉዳት ችግር ያለበትንም ሰው ከሆነ ቁጭ ብሎ መወያየትና ነገሮችን በሰከነ መልኩ dhankooda maamulka magaalada Batu ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay gacan weyn ka qaadanayaan gacan qabashada dadka hantidooda waxyeeladu ay soo gaadhay sidoo kalena ganacsatada magaaladu ay door weyn ku leeyihiin gacan qabashada dadka dhibaataysan. የመንግስት ሰራተኛው የምታዩት በሙሉ የወር ደመወዙን ugu dambeyntii maamulka magaalada Batu ayaa cadeeyay inay ku hawlan yihiin sidii shacabka waxyeeladu ay soo gaadhay dib loogu asaasi lahaa ganacsiyadoodii looguna soo celin lahaa noloshoodii hore. markana magaalada Bahardar wararka nooga imaanaya dowladda deegaanka Amxaarada ayaa waxaa la sheegayaa in magaalada Bahardar lagu qabtay olole wacyigelin ah oo ku saabsan xaaladda fayraska corona oo la sheegay in uu kor u kac ku yimid deegaankaasi soo ku waramayo waryahayaga Xamdi Maxamuud. waxa magaalada Bahardar ee deegaanka Axmaarada ka qabsoomay olole wacyigelin ah oo ku aadan kahortagga iyo xakamaynta fayraska corona. madaxa xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ahna la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee deegaanka Axmaarada Dr. Mulunesh Ababe ayaa sheegtay in xaaladda COVID-19 ee deegaanka Axmaaradu ay tahay waqti xaadirkan mid khatar ah. በተለይ ወደ ጽሙኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ በሽተኞች dadka uu soo ridanaya fayrasku waa kuwa dhimanaya iyagoo aan helin caawimaadkii ay u baahnayeen. waxa kale oo jira kuwa kale oo guryahooda ku geeriyoonaya oo isqarinaya iyaga oo leh waa xanuun sahlan oo aan ogeyn khatarta COVID-19. sidaa daraadeed waa inaynu fahanaa khasaaraha nafeed iyo dhaqaale ee uu inoo horseedayo COVID-19 oo aynu samayno taxadar dheeriya. ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው። Dr. Mulunesh waxa kaloo ay sheegtay inay mudan tahay in laga wada shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa saameynta COVID-19 oo ku yeelan karo hawlaha horumarka. አስቸኳይ ጊዜ ይሁን ወቅታዊ ይሁን waxaan soo jeedinayaa fariin ahaan in ka deegaan ahaan iyo heer dalba laga wada shaqeeyo xakamaynta iyo ka hortagga fayraska corona si uusan caqabad ugu noqon hawlaha horumarka. መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። Dr. Mulunesh ayaa warbaahinta u soo jeedisay inay doorkooda ka qaataan xakamaynta fayraska corona isla markaana ay wararkooda iyo barnaamijyadooda diiradda ku saaraan ka wacyigelinta bulshada ee fayraska corona. ku-xigeenka madaxa xafiiska nabadgelyada ee deegaanka Axmaarada Gadhabe Haylo ayaa sheegay in laga tallaabo qaadi doono cid walba aan u hoggaansamin awaamirta la soo rogay ee ku aadan ka hortagga iyo xakamaynta fayraska corona taasi oo bayaankeedu yahay 30 Isbaaro 2013 ማለትም እያንዳንዱ ሰው ማስክ አድርጎ እንዲንቀሳቀስ
እያንዳንዱ ሰው ርቀቱን እንዲጠብቅ mas-uulka ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kastoo aan dhaqan gelin awaamiirta isla markaana ay mutaysan doonaan ganaax dhankooda shacabka ka bogsaday fayraska covid-19 ayaa shacabka intiisa kale uga digay inay ka taxadaraan halista fayraska corona isla markaana ay raacaan tallaabooyinka ka hortagga u ah sida kala fogaanshaha iyo dhaqashada gacmaha እጃችንን መታጠብ አለብን ማስክ መጠቀም አለብን guud ahaan deegaanka axmaarada ayaa la sheegay in fayraska corona tirada dadka qaaday ay kor u dhaafayaan 11,000 oo qof waxaana u geeriyooday ilaa iyo hadda fayraska 250 qof halka waqti xaadirkana ay fayraska u jiifaan xarumaha caafimaadka 416 qof oo 97 ka mid ah ay xaaladoodu liidato markana deegaanka Soomaalida xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa waxay xariga ka jirtay mashaariic horumarineed oo iskugu jira adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha mashaariicahan oo ay ku baxday malaayiin lacageed ayaa wafti horkacay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar waxa uu xariga ka jiray mashaariicahan kuwaasi oo waxtar weyn u leh horumarinta asaasiga bulshada mashaariicahan ayaa kamid ah ballanqaadyadii xukuumaddu ay ka sameysay isbedelka kadib si taas oo waqti xaadirkan la hirgeliyay haddaba mashaariicahan la hirgeliyay maanta ayaa bulshada dawladda deegaanka Soomaalidu waxay u qabeen baahi aad u weyn sida uu ku waramayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalidu intii isbedelku dhacay kadib ballanqaadyadii xukuumaddu ay shacabka u sameysay sida guud ahaan badankooda looga jawaabay haddii ay kuwa laga jawaabi jiraan ay kuwa ama pipeline ku soo jira ama kuwa hadda socdo oo kale waxa taa ka maqraatiyaan isleeyahay degmada Gursum laftigeeda oo intii hadda isbedelku dhacay mashruucan maanta aan furayno mooye mashaariic kale oo fara badan iyadana laga qabtay shacabkuna ay ka maqraati kaceen in isbedel uu ka muuqdo dhanka ka warhaynta degmadan marka la eego xukuumadda mashruucan maanta aan u joogno 13 tuulana biyo siin doonta waxa kale oo jira dugsiga hoose dhexe goray waxa jira balaarinta dugsiga quracmataan waxa jira isaguna dugsiga sare ee dhagax leh oo isna gabagabo hadda ku dhow oo ahaa mid isaguna bilowday sanadkan waxa jira isaguna oo noqon karnaa waa waxyaalihii la qabtay wadada dhagax leh iyo ku bijaaro oo ilaa 36 milyan ay ku baxday oo uu la socdo bridge isaguna kaasoo runtii maadaama aagaasi aag wax soo saar yahay wax badan ka bedelay noloshii shacabka ka bedelay waxa kale oo laga sameeyay aagan dugsiga oo hadda aan oran karno isaguna mashaariicda socdo weeye ama dhamaaday health center xafiiska caafimaadku ka sameeyay qoloji waxa kale oo maanta isagana la dhagax dhigi doonaa isla qoloji dugsi sare oo laga sameyn doono halkaas oo dhagax dhigiisaan sameyn doono hadda waxaan ka hadlay ku dhamaaday dhagax dhigahan laakiin kaas isaguna maanta barnaamijkan ku jira waxa kale oo jira laba ambulance in la siiyey degmadan intii gaar ahaan dhagax leh intii isbedel ku dhacay marka guud ahaan waxaan oo dhan lama oran karo wax baahida shacabku 100% ama 50% ama 40% dhamaystiran lama oran karo baahida shacabka aad bay ballaaran tahay halkan kaliya ma degmadan kaliya maaha laakiin degmooyinka 93 degmo meel walba tagtaba koo ma joogin marka la eego xagga horumarka baahi ballaaran ayaa jirta ama biyaha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto وهاجاج وركي تلفزيون كونا إنتان سوق بجبين مركلة قضبة وركان حسوسية مناسبة حسكة تدبات كإثيوبيا يا ولي وحي كسعتها عاصمة الدلكا يا دي سبب تاسو لو صبر نجايا دقنا ذكركا يوليهين قوم إذا هو تنكو وركي تي في قرن كإثيوبيا وانا إنتا داوديال واتكم أسنتين داوش هذينا نبدي